Switzerland isaga oo kusoo bilaabay safarkiisa magaalo xarumeedda dalkan Switzerland ee Bern isla markaana maanta inuu la sugan magaalada Zurich waxaan rajaynayaa inuu magaalooyin kale oo ka tirsan waddanka u soo gudbi doono balse waxaan doonaynaa inaan wax ka ogaano daawadayaal safarka sheekha iyo arrimaha dacwada Switzerland oo aan filayo in mar aan ka dhageysanayo muxaadaradiisa markii ugu horreysay oo uu yimaado waddankan Switzerland ugu horreyntii waxaan doonayaa inaan sheekha ku soo dhaweeyo telefishinka caalamiga Royal iyo sidoo kale waddankan Switzerland بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله aad baan runtii u dhowahay waana ku faraxsanahay soo dhaweyntan aad baan runtii la soo dhaweeyay rag iyo dumar dhalinyaradii yar iyo weyn Royal runtii fursadan qaaliga ah ee ay siisay ee aan codkayga ku gaarsiinayo daafaha caalamka dadka aan media kala hadlayay aad baan runtii ugu faraxsanahay waadna mahadsantihiin waana runtii idinkugu hambalyeynaya dadaalkan dheeraadka ah ee aad ku wadaan ummadda Soomaaliyeed inaad gaarsiisaan aad wacyigelisaan aad wax wanaagsan u sheegtaan aad baan runtii idinkaga mahadinayaa aad baa u mahadsantahay Sheekh Maxamed Ibrahim Kinyawi adigana waxaan jeclaan lahaynay ummaddu ma isweydiinayso markii aad TV ka hadlayso waxa aad ka hadashaa huwa uu inta badan dacwo maantana waxaad nagu la sugan tahay magaalada Zurich ee waddanka Switzerland balse waxaan jeclaan lahaynay in badan oo ka tirsan daawadayaasha inaad u bidhaamiso safaradaada wadamada kamid ah qaaradda Yurub sida ay ku soo bilowdeen meelaha ay ka soo bilowdeen iyo sidoo kale Switzerland oo ku sugan tahay su'aal wanaagsan runtii nicmadaas horta ilaahay iyo fadliga ilaahay bay u noqonaysaa aaladan meediyaha ah oo runtii aan ku caan baxay soo saartay macnaha miskiin yaroo aan baasaboor Kenya iska wato aan socon karin ayaan ahaa runtii waxa ay soo saaray waa meediyaha waxa ummadayda i baray waa meediyaha fadliga ilaahay buu u noqonayaa kadibna waa meediyaha noocyadiisa de kala duwan shacabkana meesha iga barteen waa meesha wax horta lagu farxo weeyaan in shacabkaagu ku barto inuu khayr kugu barto waa nicmo kale in uu haddana ku jeclaado waa nicmo kale inuu dee kuu soo wada duceynayo waa nicmo kale nicmooyin fara badan baa haysanaa waa inaan marka afala akunu cabdan shakuura miyaana noqonaynin addoon shukriya haddii aan helayo tashiilaadkii aan ku socon lahaa waa inaan ehelkayga ciyaalkayga waqtigayga kasoo tago dalkayga iyo waxbarashadeydii aan soo tago oo aan walaalahay u imaado si life fa ogaado noloshooda wixii khalada wixii ay u baahan yihiin baahidooda runtii inaan buuxiyo waxaan u socdoo dhan waa wax anfacaya aniga waa barasho aan wax ka baranayo walaalaheen aad baan runtii ugu farxaa waxaan imid Europa ku imid waa safar dacwo ah waa 60 cisho 60ka cisho runtii waxaan ka bilaabay waa Norway Sweden baan tagay Holland baan tagay Finland maanta waa Switzerland waa Bern ka soo degay Zurich baan joogaa inta oo dhan runtii waxa ay wadwaday i casuumayay i wareejinayay dadka i geynay oo walaalo Soomaaliyeed waa dhalinyaradan u duceyn jiray ducada waa soo baxaysaa markaan duceynaya aamin waa idinka dhaha waata ducadii maanta inta ay keentay waxay isu keentay dadkii isjeclaaba isu keentay inta kalena ilaahay waa dhamaystiraya runtii adduunyo maana soo raadsanin saa sheegtay waxaan soo raadiyey waxa waaye waan daba soconnaa waa dadkeenii dadkana waxaan dhahayaa anoo u marinaya qanaad barakaysan allah ka yeelo Royal TV anoo u marinaya waxaan leeyahay shacab yahow culimadiina waa idin jecel yihiin waa kuwan idinkaga soo tagay guryahoodii noloshoodii soo daayay xaasaskoodii qaaliga ahaa dee qurratu caynkoodii ciyaalkoodii maxay idinkugu imanayaan waa kuwan idin soo maray idin sii maray waa jacayl ay idin qabaan hays dhihina culimada shacabku waa kala go-an yihiin ma kala go-na waa kuwan shacabkeena soo dhaweynaya viisada u diraya soo sagootinaya runtii Zurichna waa magaalo aad u qiimi badan maanta dhan waa wada marayay meel walba la geeyay dhaqankeeda iyo halkan waxyaabaha ku kala duwanahay wax badan waa wadaa wax badan waa soo qabtay waa duubaya dibna runtii waad kala socon doontaan aad iyo aad mahadsantiin waa tahay sheekh su'aasheeda ugu dambaysa ama dareemay inuusan waqti jirin inta badan waxaad ka hadashaa jadwal diimeedkaaga siyaabaha aad wax u fidiso waxa ugu awood badan wacyigelinta dhalinyarada waxaan maanta kulankeenii ugu horreeyay oo aan aniga adigana ku kulanno arrinka wacyigelinta dhalinyarada ayaa ugu weynaa bal arrinka wax hal iyo labo والله dhalinyarada daa'iman aan daba socdo oo aan iraahdo dhalinyaro ilaahay ha idin dhowr ilaahay ha idin xifdi
waxaan ogahay ummad waxay ku dhisan tahay waa dhalinyarada xoogga ummad ay leedahay waa dhalinyarada waxa keliya oo ay ku faanto ummad waa dhalinyarada in marka loo duceeyo loogu duceeyo cumri dheer loogu duceeyo hanuun loogu duceeyo islaam loogu duceeyo in ay damiirkooda uu soo jeedo oo ay waxaan ogahay waa laf dhabarka ummadda halka ay maaragtahay dee ka toosto ummad hadday weyda dhalinyaradeeda waa baaba'aysaa waa ummad khasaartay waa ummad hartay ummad takhalluf ku dhacay dhalinyarada daa'iman sidaasaan u daba socdaa runtii dhalinyarada way qaataan wallahi ma aanan arkin dhalinyaradeena dad ka qalbi fiican wallahi inaana caalamka ku ogeen inta aan garanaya aqoonteedu tahay ummadeena meel fog ma sii jirto dhalinyaradeena kaa madaxa xiranay aan canaanto kaa surwaalka ka dhadhacayay aan canaanto gabadhaa qaawanay aan canaanto wallahi ee dharka ka tagtay wallahi meel fog ma jiraan haddaad qalbi fiican oo wanaagsan ikhlaasnimo ilaahay dartii aad wax ugu sheegtid dee xikmad iyo mawcida wallahi waa dadka ugu dhow waxay u baahan yihiin maanta dhalinyaradeena waxa gacan nadiifa u taaga oo kasoo bixiya halkay ku jiraan laakiin annaga xoogaha waxaad moodaa haddaan nahay dadkii diinta baranayay dacwada xoogaha waday waxaad moodaa inaan ka gaabinay annaga markaan kala qoloqolo noqonay oo aan diintii qoloqolo ka dhignay diintii qabiil ka dhignay diintii firaq ka dhignay annagii isqabsanay kala fogaanay farta isku fiiqnay isgaalaysiinay in badan kala fogaanay ilaahay waxaan ka baryayaa si dhalinyaradeena ay mid u noqdaan culimadeena inuu mid ka yeelo biidn illahi tacaala maxaa waca culimada haddaan aragno iyagoo heshiis ah iyagoo hal ah isjecel firaqyadooda kala duwan isdhunkanaya meel wada fadhiya go-aan soo saaraya hal ah qalbi qof keliya waxaan hubaa inay helayaan shacab keliya qalbi keliya uladiirkeeda dad iswada jecel waana sida ilaahay uu nagu ammaanay oo uu dhahayo wactasimuu bixabli illahi jamiican aan iska ilaalina qabiil aan iska ilaalina firqa aan iska ilaalina kala tag wadajirka waa guul ilaahay ummadeena wadajirkeedii ha soo celiyo aad baa u mahadsan tahay sheekh maxamed